dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku heshiiyay dalka Turkiga waxaa magaalada Ankara lagu soo gabagabeeyay wadahadaladii u dhaxeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo ay garwadeen ka ahaayeen dowladda Turkiga waa markii ugu horeysay ee tan iyo markii ay Itoobiya heshiis la gashay Somaliland oo ay madaxda labada dowladood waji isku hor fariistaan ayna u wada hadlaan khilaafkoodii kulankan u dhaxeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaa garwadeen ka ahaa madaxweynaha Turkiga waxa ayna labada dhinac ku heshiiyeen in dhammaan arrimihii la isku haysta sida heshiiska khilaafka dhaliyay meesha laga saaray ayna tahay taariikh tagtay labada dalna ee u bilaaban doona bog cusub oo ku saleysan qadarin iyo dhowritaan madaxbanaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal murtiyeedka gabagabadii shirka laga soo saaray ayaa waxaa lagu xusay in heshiis kasta oo dhacaya qasab in ay tahay in la soo maro dowladda Soomaaliya wararka ayaa sidoo kale daaha looga qaaday arrimaha la xiriira adeegsiga oo ku kooban ganacsiga ay labada dal u mari doonaan hab sharciyeed labada dal faa'iido u leh oo qayb ka qaadan doona horumarinta dhaqaalaha laguna saleyn doono dhowrista qarannimada madaxbanaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed Soomaaliya si waafaqsan sharciga caalamiga ah dowladda Turkiga ayaa ah wadan si dhow saaxiib ula ah wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya waxa uuna isku xilqaamay xalinta dowladaha khilaafka ka dhaxeeya oo gaaraya xiriirkoodii meesha ugu xumeyd dowladda Soomaaliya ayaa ugu mahadcelisay madaxweynaha Turkiga shacabka iyo dowladda Turkiga martigelinta kulankii iyo dadaalkii ay muddada 8 bilood ah ay ku bixiyeen arrimaha dhalinta xasaaradaha ka aloolsamaya Geeska Afrika